السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد رير الضيق فوليشن جروب فريدس مقالة مقدشو وأنا كسبنا حافظ كمدة أما كمدة كاسو اللي يراه الضيح ويكون يندب ولا ومسلمين وبركة عيارة أنت بدنا يعني شو جالسين الضيق راشينين ينوسوا وكيلتي ولا المسلمين ده وجعل خير كي وناجا وكنا نودك سويسرلاند حلينا عبد الله الساق إن ضيق ده أيام قلنا ولا المسلمين ده يوم هالكم فرقية يعني إن شاء الله بإذن الله إلى نجارسينه ما دام وقتنا وياه حل حن إن شاء الله بإذن الله كريم نرضى وضع سيدان الله والله 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 الله waxa ilaahay lagu dhawaan bishaan waxa kamid ah ama ugu fadli badan in wax la sadaqaysto oo dadka baahidooda wax laga qabto ayaa ugu muhiimsan sadaqadu fadli dheeraad ay leedahay sadaqadu waxa weeye qofka muslimka ah maalinta qiyaame oo qorraxda ay kulushahay oo dhibaatadu ay badan tahay waxa la harsanayo oo qof kasta uu ku baxsanayo inta meesha la taagan yahay waa sadaqadiisa la yiri tan kale sadaqadu sinuu saasan oo sheegay sadaqadu ilaahay subhanahu wa ta'ala caradiisa ayay damisaa baa la yiri marka dambiga aan galayno oo iska tira badnaan kara oo carada ilaahay keeni kara subhanahu wa ta'ala carada ilaahay waxa lagu dambi karaa oo meesha laga saari karo waa sadaqada weeye sadaqadu waa shay qaali ah oo qofka aan ka faa'iideysan asagoo aan tabar hayn ayuu rajaynayaa inuu wax sadaqaysto hadduu wax sadaqaysan lahaa buu tamaninayaa ama rajaynayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay in inta la nool yahay laga faa'iideysto nolosha waxa la haysana waxa laga bixiyo inta aysan geeridu imaanin wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabl an yaatiya axadakum almowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasaddaqa wa akun min alsaalixiin culamadu waxay yidhaahaan qofka markuu geerida la kulmahayo saan odhanaya wuxuu odhanayaa ilaahu dib ii dhig aan wax sadaqaystee muuse odhan baa la yidhi aan tukadee ama aan soomee maxaa yeele sadaqada qiimaheeda buu arkayaa baa la yidhi marka jaaniskii sadaqada uu dhaafay haddii loo soo celin lahaa buu tamaninayaa marka sadaqada waxaa weeyana guud ahaan waxaa u fadli badan waxaa loo yaqaano asadaqa aljaariya sadaqada joogtada ah waxa ilaahay lagu dhawaan bishaan waxa kamid ah ama ugu fadli badan in wax la sadaqaysto oo dadka baahidooda wax laga qabto ayaa ugu muhiimsan sadaqadu fadli dheeraad ay leedahay sadaqadu waxa weeye qofka muslimka ah maalinta qiyaame oo qorraxda ay kulushahay oo dhibaatadu ay badan tahay waxa la harsanayo oo qof kasta uu ku baxsanayo inta meesha la taagan yahay waa sadaqadiisa la yiri tan kale sadaqadu sinuu saasan oo sheegay sadaqadu ilaahay subhanahu wa ta'ala caradiisa ayay damisaa baa la yiri marka dambiga aan galayno oo iska tira badnaan kara oo carada ilaahay keeni kara subhanahu wa ta'ala carada ilaahay waxa lagu dambi karaa oo meesha laga saari karo waa sadaqada weeye sadaqadu waa shay qaali ah oo qofka aan ka faa'iideysan asagoo aan tabar hayn ayuu rajaynayaa inuu wax sadaqaysto hadduu wax sadaqaysan lahaa buu tamaninayaa ama rajaynayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay in inta la nool yahay laga faa'iideysto nolosha waxa la haysana waxa laga bixiyo inta aysan geeridu imaanin wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabl an yaatiya axadakum almowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasaddaqa wa akun min alsaalixiin culamadu waxay yidhaahaan qofka markuu geerida la kulmahayo saan odhanaya
wuxuu odhanayaa ilaahu dib ii dhig aan wax sadaqaystee muuse odhan baa la yidhi aan tukadee ama aan soomee maxaa yeele sadaqada qiimaheeda buu arkayaa baa la yidhi marka jaaniskii sadaqada uu dhaafay haddii loo soo celin lahaa buu tamaninayaa marka sadaqada waxaa weeyana guud ahaan waxaa u fadli badan waxaa loo yaqaano asadaqa aljaariya sadaqada joogtada ah. waxa ilaah lagu dhawaan bishaan waxaa ka mid ah ama ugu fadli badan in wax la sadaqaysto oo dadka baahidooda wax laga qabto ayaa ugu muhiimsan. sadaqadu fadli dheeraada ayay leedahay. sadaqadu waxaa weeye qofka muslimka ahi maalinta qiyaame oo qoraxdu ay kulushahay oo dhibaatadu ay badan tahay waxa la harsanayo oo qof kasta uu ku baxsanayo intii meesha la taagan yahay waa sadaqadiisaa la yidhi. tan kale sadaqadu si nabi sal slam unoo sheegay sadaqadu ilahi subxana wataala caradiisa ayay demisaa baa la yidhi. marka dembigii aan gelayno oo iska tiro badnaan kara oo carada ilaahay keeni kara subxaanahu wa tacaala carada ilaahay waxaa lagu dembi karaa oo meesha laga saari karo waa sadaqada weeye. sadaqadu waa shay qaali ah oo qofka aan ka faa'iidaysan isagoo aan tabar hayn ayuu rajaynayaa inuu wax sadaqaysto. hadduu wax sadaqaysan lahaa buu tamaninayaa ama rajaynayaa. allah subxaana wa tacala wuxuu noo sheegay in inta la nool yahay laga faa'iidaysto nolosha waxa la haysana wax laga bixiyo inta aysan geeridu imaanin. wa anfiquu mima razaqnaakum min qabl an yaأtiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min aلsaalixiin. culamadu waxay yidhaahaan qofka markuu geerida la kulmahayo saan odhanaya wuxuu odhanayaa ilaahu dib ii dhig aan wax sadaqaystee muuse odhan baa la yidhi aan tukadee ama aan soomee maxaa yeele sadaqada qiimaheeda buu arkayaa baa la yidhi. marka jaaniskii sadaqada uu dhaafay haddii loo soo celin lahaa buu tamaninayaa. marka sadaqada waxaa weeyana guud ahaan waxaa u fadli badan waxaa loo yaqaano asadaqa aljaariya sadaqada joogtada ah.